السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكال كايدا كاغا موقدا waa Cherry waa wiil u dhashay gobolka Mudug waa aalubeydka gobolka Mudug waxa uu ka sheekaynayaa dhibaatadii iyo mahadhooyinka goystay wuxuu ka tirsanaa al-shabaab wuxuuna xigay xilka ah isku dubaridaha qaraxyada miinooyinka bumbatuurka wixii qaraxa waa asagu qaabilsana sida uu sheegtay waxa uu ka sheekaynayaa haldoorkii hooyooyinkii masxastii intii uu qarxiyay intii uu meydkooda dul istaagay ee uu qaraxa ku xiray waxaan barnaamijka sida gooniga uga soo qaatay asaga wali barnaamijkiisu ka soo bixin programkii afmeer ee daadiinaya Timire balse clip yar oo kamid oo aan helay way waxaan idin soo bandhigayo asagoo qiranaya dhammaan qaraxyadii gobolka Mudug ka dhacay inuu abaabulkooda lahaa asaga iyo amiirka sareeyay ee Umar badala dhageyso adaa yaabi doone inta uu qarax iyo mahadhag geystay waxa uu geysanayay waa ilma adeertii iyo xaafadii uu dhashay asag oo gaalka ay ahay qof aan reerkiisa ahayn ma uusan dilin dhammaan waxay ahaayeen ilma adeertii waxa halka kaaga cadaanaysa al-shabaab inaysan qabiil lahayn ay yihiin daalimin ummadda lagu soo dhaxtuuray aan naxayn naxdin iyo nasabad midna aan lahayn bal waa kane ila daawo bismillaahir rahmaanir rahiim Cherry waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qaraxyadii magaalada gaalkacyo ka dhacay qaraxii ugu horeeyay oo gaalkacyo ka diyaariseen hadduu ahaa qof isqarxiya iyo hadduu ahaa gaari nin wato isqarxiya bal iiga waran qaraxii ugu horeeyay oo diyaariseen qaraxii muxuudin gacme see u diyaariseen waxaa loo diyaariyey gaari saabuq bees ah waxaan kasoo gadnay baraxleed eeqa ka bixiseen 380 waa gartay gaarigaas lacagta waxay soo leeyahay Cabdulqaadir Umar waa gartay amiirka la saraya waa gartay anna waa soo daray yaa ku soo kaxeeyay gaariga waxaa soo kaxeeyay Maxamed waa gartay Maxamed iyo gaariga uu socdo waxaan ku wareejiyay Umar waa gartay qarax lagu soo diyaariyay xagee lagu diyaariyay qaraxaas qarax waxaa lagu diyaariyay geesh ku yaal cagabina waa gartay baabuurta ugu jarjarta yaa loo dhiibay markii gaariga qarax lagu soo diyaariyay waxaa loo dhiibay nin mursada ah ninka mursadaha ah xagee jooga ninka mursada waxaa keenay Cabdulqaadir Umar baa keenay oo ka dambeeyay yuu ku wareejiyay wixii asaygu isoo anigu soo wareejiyay ninka isqarxin doona oo gaariga muxuudin gacme isku qarxin doona adaa lagu soo wareejiyay xagee geysay waxaan geeyay meesha amal agteeda hotel baa marka hotel baan geeyay hotelkaas habeenkii maalintii ka bacd marka qarax hotelka magaciisa ii sheeg hotel Nasiya geysay markii qarax gaariga la soo diyaariyay waa soo kaxaysay soo kaxeeyay gaariga qarax baan ku soo wareejinay oo amiirka ku soo wareejiyay kadib waxaan keenay meesha amal agteeda ninkaas isqarxinayo ceelbuur laga keenay oo murursadaha nin muxuudin gacme yaqaan ma ahayn yaa tusiyay markaa muxuudin gacme tusiyay nin waxa ninka biyaha Maxamed uu tusiyay qaraxaasna saasoo ku dhacay ninkaas lacag meeqa qaleey baa siisay ninkaas waxaan siinay 485 qaraxaasi waa qaraxii General Muxuudin gacme qaraxii ku xiga keebu ahaa qaraxii ku xiga wuxuu ahaa kii xiradayax qaraxii xiradayax xiradayax qaraxiisa iga waran see u diyaarisay qaraxiisa amiirka lahaa wuxuu ka dalbaday nin isaga ka sareeya oo ceelbuur joogo gaariga loo soo dhiibay weyn gaariga markuu gacay mid laba nin baa isla socday gaariga labada nin midna gaari kale uu diyaarinayo nooha oo amiirka diyaariyay baa lagu wareejiyay markii labada qarax lagu wareejiyay anaa lagu soo wareejiyay anigana waxaan ku wareejiyay xiradayax baan dhigay qaabka u dhigtay iyo iga sheekay sida lagu soo wareejiyay nimankii gawaaridaas isku qarxiyay intee nin bay ahaayeen xagee magaalada laga dejiyay laba nin baa ahaayeen nin noohada lagu wareejiyay aniga gadaal iska qarxin doona noohada gadaal iska qarxin doonto oo magaaladan gaalkacyo lagu diyaariyay laakiin labada nin ceelbuur bay gaariga weyn kala yimaadeen amiirka saa dalbaday xagee dejisay ninkii gaariga weynaa ninkii gaariga weyn waxaan dejiyay hotel cagab baan dejiyay gaariga xagee baad dhigteen gaariga waxaa la dhigay dowladda hoose hotel amarka dowladda hoose gaariga lagu dhigayo lagu wareejiyay soo ma lahayn dowladda hoose haddaa dhigtay ninkii baa ka kaxaysay goormay ahayd xilli nooca galab ah kaxeeyay subaxdii lagu soo shaqay gaarigaasi galabtii meeshu yaalla habeenkii oo dhan meeshu yaalla subaxu qaxayo qaxa waxaa la dhigay gaari meel socda baadiyo socda la raray markaa gaariga noohadaana waa la soo diyaariyay isagana waxaa la dhigay meesha baabuurta ay ka baxaan meelaha albooqdiisa aado istaanka
astaanka baabuurta culmado iyo halbooqad aadab uu gaarigaasi yaallay oo gaaru goormaa la dhigay waxaa la dhigay isla galabta sidan galabnimadii waa la sii dhigay habeenkii waa yaallay dhowr gaari meesha kale baabuur badan usmaxda aasay baxdaa jirto yaa ilaalinayay waxaa ilaalinaya gaariga mahadi wata ilaalinaya laakiin amiirku wuxuu ii sheegay laba nin asaga oo jisda qaas ahaa in u fiiriyeen labadaa nin magacyadood gujisi maxamed deeq buu sheegay gujisi iyo maxamed deeq laakiin aniga waa igu madaxda iga qariyo see loo qarxiyey baabuurta marka ma rimuud baa lagu qarxiyey gaariga weyn gaariga rimuud baa lagu qarxiyey kan kale tane waa isqarxin cali kan kale markuu isqarxinayo see isu qarxiyey isku qarxiyey labada ninba oo dadka kaagu marka lagu qarxiyo waxay ku yaaceen buu iska dhigay gaari degdeg ah gurmadka degdega ah waa garta soo socda kuwa waa garta iskati baa fahamtay xabad bay ku riday midkii dhinaca saarnaga ku dhacday kan kale tane isqarxiyey labadii nin oo ceelbuur gaarigan weyn oo isqarxinaya ka soo raacday labadaba noohaday ku wareegay saasayna isku qarxiyey qaraxii kaloo ku xigay nimankaasi lacag lama siin miya markaa lacagtooda in wada xagga ka soo qaateen ceelbuur bay kala yimaadeen lacagtoodii waxooda qaraxii ku xigayna qaraxii ku xigay wuxuu ahaa qaraxii jiila cabdilaahi gaadda yare soo dhaaftay qaraxii gaadda yare see u dhacay qaraxii gaadda yare waxaa qarxiyey nin asaga saaxiib la ahaa baabuurta daba jira waa gartay ninkaasaan anigu tashkiiliyey oo la heshiiyey amiirka ku wareejiyey ninkaas adigaa tashkiiliyey muddo intee leeg baa tashkiilinaysay laba isbuuc bay kugu qaadatay maxaa ku tiri markaa tashkiilinaysay waxaan ka dhaadhicinaya inuu ninkaas qarxiyo uuna kaa yeelay lacag meeqa leeg baa siisay $400 iyo waxaan siiyey $820 baad siisay amiirka ku wareejiyey amiirka jaakada qaraxa ee lagu isku diiday dibaan jireer gurigiisa loo keenay sida jaakada qaraxa lagu xiray sida socodka halkaa iigu celi amiirka baa isla jaakadii qaraxa soo diyaariyey amiirku waa kee adiguna ninkii isqarxin lahaa gaad yar isku qarxin lahaa baa soo tashkiilisa soo diyaarisa jaakadii xaggee la geeyey guriga liibaan jareer baa la geeyey haye kadib maxaad samaysay halkaas ninkii loogu geeyey ninkii buu jaakadii usoo labisay digaan yaa u geeyey anaa u geeyey liibaan jareer ninkii isqarxinaya anaa u geeyey si uu jaakada ugu soo xiro muxuu sameeyey ninkii jaakada usoo xiray uu soo diyaariyey meeshii uu ninkii ugu yimid ninkii gaadaya saasaa waxaa lagu dilay xisaabiyihii gobolka mudug qaraxii ku xigayna waa jiir cabdullaahi yuusuf qaraxiisa sidee ahaa qaraxiisa wuxuu ahaa waa nin jareera oo ka yimid halka ay qanimo nin jareera oo halka ay qanimo ka yimid haye waxaa dalbaday inuu umul baa dalbaday meel qaxootiga kusoo degay qaxootiyada guri ka mid kusoo degay waa gartay markuu kusoo degay inuu umuli asaga wada kulmaan kabacdi anaa liisoo wareejiyey waa gartay markaan wareysay qaraxa gagalku anigu qaraxa suun qaraxa wata laakiin qaraxa wuxuu ii sheegay inuu asaga diyaariyey suunka qaraxa ah farsamadiisa iyo gacantiisa umul baa diyaariyey ninkii adiga laakiin waa lagu keenay isku qarxin lahaa saraakiisha xaggee lagugu keenay waxaa lagu keenay meherada dukaankaaga intee maalmood buu kula joogay aduu maalinta kuwaad is aragnay maalmaadkeed waa balannay aduu isbuuc buu kuu soo noqonaya waa is waraysateen aakhir shaqadii baa u diray indhayntii maxamed deeq baa lahaa nimankana soo kormeeray ninkaas jareer buu ahaa qanimo buu ka yimid saraakiishaan see buu aqoonsada maxamed deeq baa tusayey lacag meeqa la eg baa siisay ninkaa $380 yaa kugu dhiibay okay qaraxii ku xigayna gudoomiyaha gobolka qaraxiisa bal qaraxaas iga waran qaraxaas wuxuu ahaa gaari nooha waxaan kusoo gaday baraxdeed yaa soo gaday anaa soo gaday adigaa soo gaday okay lacagta waxay ii dhiibay amiirka meeqaa ka bixisa gaarigaas $850 baad siisay konton baad kala hadhay waa gartay waa gartay waa gartay ninka gaariga kaxayn doona isqarxinaya xaggee laga keenay ninka wuxuu yiri waxaan ka keenay ceelbuur baan ka yiri ceelbuur waa murursade magaciisa ma haysaa adiga soo laguma keenin ninkaas meeqa maalmood buu ninkaas gudoomiyaha gobolka isku qarxiyay adiga kula joogay aniga maalin kula joogay waa hotel aan geeyay
hotel kee baad geysay hotel la siyaasiyey qayb ka horeysa uu ka cuntay sidaati doorkii kale waa soo wareejiyay doorkii kale oo gaariga diyaarad ninkii soo kaxaysay ninkaas ceelbuur buu ka yimid ma yaqaano gudoomiyaha gobolka iyo gaariga uu ku socdo ma yaqaan maxamed deeq baa hayay usoo wakiishay kaliya maxamed deeq baa qaraxa ku hagayay gudoomiyaha goomeystuhu joogay ninkaana waxaa lagu diyaariyey geedka dheer oo ka sokeeyo gobolka geed gobolka ka soo jeedo shaamacaan hortiisa ah shaamacaan hortiisa buu gaarigan taagnaa waa meesha uu baakay maxamed deeq meel ka horeysa ku hagayay gaariga ninka gudoomiyaha saaran buu yaqaanay waa gartay marka asaga isku hagayay marka lahaa gaariga markuu soo baxo anaa soo siyaaraanaya dhaqdhaqaaq qaraxi saasuu ku dhacay ninkii gaariga isku qurxiyo murursade meeqaad lacag siiseen ninkaas waxaan siiyey $900 adigaa siiyey gacantaada isaga adaa uga dhiibay adiga lacagtiyaa kugu dhiibay qaraxi ka dambeeyena qaraxi ka dambeeyey kaasuu qarax ku hori wuxuu ahaa sheekh ismaaciil nin la yidhahdaa ku dhintay sheekh ismaaciil baa ku dhintay ninna waxba kama gaarin oo wadaadka la saarnaa laba nin oo gaari saaran bay ahaayeen xaggee qaraxa la geliyey qaraxa waxaa la geliyey hotel shaariqa hortiisa geedka ku yaal geedgoodka okay yaa ku dhintay qaraxaas wadaadka sheekh ismaaciil ku dhintay meesha la geliyey qaraxa yaa geliyey liibaan baa geliyey qaraxaas liibaan baa geliyey adigaan u dhiibay qaraxaas magaca isu dhiibay ninkii umar laakiin amarka liibaan adaa siiyey amarka anaa siiyey liibaan amarka ah taargetka uu qaraxa u gelinaya iyo meeshuu gelinaya adaa siiyey meesha qaraxa la gelinaya adaa soo indheendhiyey waxaa soo indhiyey maxamed deeq soo indhiyey meesha ugu soo calaamadeeyey aniga dukaankaa joogay waa la ii sheegay qaraxaas waa diyaarsan yahay nimankaasaan meesha kusoo wajahan baa lagu leeyay qaraxa la geliyay liibaan baa wacay qarax buu soo diyaariyay soo qaaday maalintaa liibaan meeqaad lacag siiseen liibaan 150 siiyay qarax waxaa jiray ka dhacay hotel classic gaari qarax lagu xiray 3 qof ayaa ku dhimatay qaraxaas yaa diyaariyey qaraxaas liibaan baa diyaariyey yaa amray umar baa ana amray umar baa laakiin soo dhiibay qaraxa umar baa soo dhiibay aduu kuu dhiibay aduguna waxaad u dhiibtay liibaan oo ahaa ninka aad hawsha u dilaysay gaarigii buu saa qaraxi ugu dhejiyey dukaankaagana waa u dhow yahay meeshaas halkaasaad ka daawanaysay okay lacag intee leeg baa maalintaa siisay liibaan $80 baad siiseen okay hadda qaraxii hadda tusaale ahaan ka dhacay xero dayax gaariga ceelbuur ka yimid oo weyn oo isqarxinaya iyo noohadii ninkii hagayey oo diyaarinayey oo buusishinada la dhigayay geynayey oo nimanka isqarxinaya hoteelada seexinayay adigu ahaa soo maaha kaasina wuxuu ahaa jeeri oo ah amiir ku-xigeenka gobolka mudug ee amniyaadka ilaa iyo 2015 ilaa 2020